ay keen faantirar hargeysa dhamaantiin waan jecelahay shacabkayga dadka taageero iyo dadka jecelbo waxa dhihi lahaa hargeysa waan joogaan oo nabad youtube-ka subscribe noo saar muuqaalkan hadduu ku xiiso geliyana kulay like-taada ku qabo share-taada waa inoo muhiim saaxiib xasanid ku soo dhawow mar kale hargeysa jecel aan u qabo ayaana u imid ayay leedahay gabadhan iyaguna way i xireen najmo loo garan ogyahay Mrs Wall oo aan ka ah barta TikTok ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa ee caasimada u ah Somaliland xilli ay safar dhanka dhulka ah halkaasi ay ku gaartay horey ayaa sidan oo kale lagu xiray Hargeysa xilligaasi oo dib loo soo celiyay Muqdisho haddana mar kale ayay ku safartay maadaama safarkii hore ay ku tagtay diyaarad iyadoo alboorka lagu soo qabtay lagu soo tarxiilina Muqdisho markan iyadoo istaraatiijiyadeeda bedeshay ku gashay magaalada Hargeysa dhanka dhulka ah iyadoona filaysay inaan la qaban doonin balse ugu dambeyntii ciidanka booliska Somaliland ayaa gacanta ku dhigay iyagoo xabsiga u taxaabay ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in ay soo tarxiili doonaan garoonka diyaaradaha aadan ade ee Muqdisho mana ahan markii u horeysay dhacdo noocan oo ah ka dhacdo magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland haddii ugu cusub tahay YouTube subscribe noo saar page-keena follow dheh muuqaalka dad ka heshana like saar share taadana ku qabo saaxiibadaada u sii share garay commentigaaga hor ayaa u tahay